بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جوا عبد الله حاشر وبدأي أفيانك الدولة جولات الجلمدوك ما أنت مركي ساعدوا أي هيد لحد الدهور نمو أي وحى منطقة محيا هيتو أنا جوا مريا وضد هرمرتا عرون تبارلمان كجلا شعب كان بيزجوز كسيد كه وحجاري جاري كهر جري إذا ما كترسن إذا كحسلين تجارهان كونا بالسجدة runtii markii ay ka soo degeen gaariga waxa la isku qabsaday asaga waayay iyo ma ahan waa la fasaxay diba hadana gaariga la igu horjaray waa isaga la yiri ka soo degay la yiri gaariga dadka la ila saaraa dadka kale waa ay degeen gaariga markii aan ka degay mobilada ayaa laga qaaday shaarkeyga ayaa la furay si xoog ah indhaha ayaa la iga xiray gaariga ayaa kor la iga tuuray runtii ma garan karo meesha la geeyay muddo ayaa la wareejinayay meel geedo iyo qodxa ay isugu jirta oo god ayaa la galiyay markii intaas la sameeyay ayaa leela hadla waxaan la igu yiri waxa dhibaatada aad nagu hayso mid la mid aan ku geysan doonaa waxaan ku waro maxay tahay dhibaatada aan ku hayo waxba iimisan sheegin wali soo kaxeeyay hadana gaari kale ayaa la soo saaray meel aan isleeyahay waa guri ayaa la geeyay macnaha deeqaab meesha hor maxay meel gudaha ahayd laakiin meesha oo ka duwaneed markii meeshaas ay ahayd waa meel mugdi ay ahayd dhowr nin oo kaamirooyin mobile haysta joogay iyo dhowr nin oo qoryo wadata indhiha laga furay waxa la igu yiri adiga Soomaha mid ninka laga fakalayahay oo maalin walba qalbi dhagax iyo heblow ku haya soo adiga maaha ninka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma taqaana maxay ahayd toddoba dhigtay soo adiga maaha ninka maalin walba ku haya ciidanka xasilinta qof dilay maanta adiga ku haysataa bal warna la yiri aniga waxaan ku warinayaa nin xasaanad leh oo maamul afyaan u ahanahay ay dhiigayga daarabtan waa fiiri kartaan haddii dambi la haystana ma taqaana cadeynteedii maxkamadda la iga yeero haddii wax afduubtaana wixii doona hal iga sameeyo markaas ayaa jirdilka lagu bilaabay haraati iyo feer bareeska ayaa korontada la gashtay aniga u jeeda korontada lagu bilaabay intaas kadib waxa amar la igu siiyay qoryihi inta la igu soo taagay hadaad noloshaada rabto inaad dharka oo dhan dhigto runtii dagaal dheer kadib dharkii ayaan dhigay iyadoo qoryihii lagu hayo kaamirooyin ayaa la soo qaatay sawirro ayaa la iga qaaday waxaana la igu yiri hal boosti oo madaxweyne farmaajo ama ra'iisul wasaare qeyr ka mid ah hadaad soo dhigtid ama qalbi dhagax ka hadlay waxaan soo dhigi doonaa hal sawir oo sawirada hadda aan ka qaadna ka mid ah markasta oo boost soo dhigtid markasta sawiraan soo dhigi doonaa waxa la igu yiri naftaada ilaasho sumcadaadana ilaasho iridda ka bax hadaad ma taqaana mar dambe maxay ahayd afaaraheena iyo afaaraha dawladda soo gasho markii dambe noloshaada way doontaa indhaha la iga xiray gaariga la igu soo tuuro gaarigaygu ahaa meel aan is garanaynin ayaa gaariga la joojiyay maraan isleeyahay 10 daqiiqo wax shanqar ayaan waayay ayaan indhaha iska furay meeshu cid lay ahayd maamooyina ii dhawaa ma taqaana xaafadda Saybiano waxa la yiri waa weydiiyay war xageen taagana la yiri markaas la Saybiano taagan tahay nimankii kula socdana gaariga qaateen waa tageen dibkaas ayaa maanta la ii geystay waxna la iigu geystay waxa waaye maxay ahayto magaca dawladda waxa la iigu geystay waxa waaye magaca madaxweynaha waxa la iigu geystay waxa waaye magaca ra'iisul wasaaraha runtii mana filaynin marka hore oo aniga afduubayeen niyadda waxa ay iga jirtay sidii shabaabkii kale shabaab ay ahaayeen laakiin markii maxay ahayto aan arkay iyo maxay taxarumaha dawladda la igeeyay iyo dhibaatada la ii geystay waxa ii soo baxday in dawladda Soomaaliya ay ugu talagashay dadka inay caburiso dadka inay dhibaateyso runtii waxayna ku kalifaysaa dhalinyarada aniga ila midka ah kuwa badan oo ficilkan maadaama qodan hore u socotay waxa jira dad badan oo iga horeeyay ficilkan lagu sameeyay laakiin garawaayay ama la hawaay kartidii ay TV-ga inta la soo hor fadhiistaan ay kaga hadlaan dhibaatada loo geystay anigu waxaan qarinaya ma jirto dhibaatada noocaas la ii geystay haddaad doontaan caawa soo dhiga anigoo qaawar haddaad doontaan caawa soo dhiga dulmiga aad ii geysateen aakhirana waa midaan ka xisaabtami doono adduunkan haddii dawladda jirto waa mid sharciga aan iskula tagi doono ma ahan midaan ka hari doono laga bilaabo xilligaana waa aaminsanahay inaad ii diyaariseen asasiino iyo dil iyo xarig intaba wixii hadda kadib aad geysataan kulli shacabka Soomaaliyeed marqaatiga ka yihiin adduunkana marqaatigu ka yahay wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.